maalin wanaagsan saaxiibayaal qodobada wararka waxaa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hanjabaadii ugu cusleed u diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sheegana in madaxweyne Xasan Sheekh lagu qalqaalinayo sidii uu shirqool ugu dili lahaa isaga haddaba Shariif Sheekh Axmed oo xalay lagu cilmaamaday magaalada Muqdisho afka ayuu furtay waxaana uu si kulul u weeraray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maxaa ka jira in beesha uu ka dhashay madaxweyne Xasan Sheekh ay xalay cilmaamad saareen madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed haddaba waxaan la wadaagi doonaa wax walba oo uga baahan tahay dhacdadii xalay ka dhacday guriga madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed qodobada kale waxaa ka mid noqon doono dowladda federaalka Soomaaliya oo hub iyo ciidanba geenayso magaalooyin ay ka mid yihiin Baydhabo Laascaanood iyo sidoo kale Garowe haddaba muxuu yahay qorshaha ugu weyn hubkaasi dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo bixisay keedka hubka ee dowladda federaalka Soomaaliya loona geenayo meelo Laascaanood ay ka mid tahay ujeedka ugu weyn ee laga leeyahay maxay tahay barnaamijkeena ayaynu idinku soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka oo gorow si rasmi ah u bilaabanayo iyo gudiyadii farsamo oo kulamo kala duwan bilaabay barnaamijkeena ayaynu idinku wadaagi doonaa soo dhawaad saaxiibayaal haddii aad saaxiib nagu cusub nagu soo bir muuqaalka like saar aragtida wax dhisaysa nagu reeb qaybta hoose ee faalada dadweynaha aan ku bilaawno wararkeena isla markaana ugu horeysiino madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa garab lama filaana waxa uu ka helay beesha Mudulood iyada oo xalay lagu cimaamaday magaalada Muqdisho waxa laga raaligeliyay dhacdadii weerarka Biradaayo ee uu kala kulmay madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud wararka leeyahay ayaa sheegay in kulkaasi xitaa ay qayb ka ahaayeen reerka hoose ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kulkaasi ka hadlay afka ayuu furtay waxa uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu abaal u galay in maanta lagu qalqaalinayo in uu dilo Shariif Sheekh Axmed oo shirqool uu ku dilo marka waxa uu yiri madaxweyne Xasan Sheekh oo aan abaal u galay waxa lagu qalqaalinaya in uu aniga idilo waxaan ku qalqaalinaya kuwa shalay ay isbarteen oo xukunka ay ku saaxiibeen laakiin anigu waxaan ahayn abaal u galay isaguna waxa ay daraa in uu aqbalay Shariifka soo dil marka warkaas ma mid aan iska dhahayo waa kan madaxweyne Sheekh Shariif ayaa sidaan leh madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waa ogtihiin markuu doorashada ku jiray wixii aan la soo marnay waxaan dadaal la sameynay dad aan waxba u galin oo maalinkaas laga yaabo inay ka soo horjeedeen ama ay ka shaqeynayaan in la dhibaateeyo amaanta waxay leeyihiin Shariif soo dil waa wada naqaana waana qaraabada ways wada naqaana nimankii shalay la yiri diyadana qaata labadana soo dila maanta inay madaxweyne Xasan dhahan Shariif soo dil ee asaguna oo yaalo horta waa doqonnimo waa tahay hadalka madaxweyne Sheekh Shariif waxa kaaga baxay aragtida hoose ayaa nagu reeb kartaa dhinaca kale warbixinada kale ee barnaamijkeena ku jira haddaan fiirino daawadayaal markaan waxaan eegaynaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa lagu soo waramayaa in keedka hubka ee dowladda laga bixiyo hubkii ugu tirada badnaa iyadoo ujeedadu ay tahay in la geeyo magaalooyin ay ka mid yihiin Laascaanood Baydhabo iyo Jowhar sidoo kale magaalada Dhuusamareeb xogaha waxay sheegayaan in hubkan siyaabooyin kala duwan oo siyaasadeed loo geenayo magaaladaas hubka la geenayo magaalada Laascaanood waxaa xogta lagu helay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu tala gashay taliska qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaan hubkaasi iyo sidoo kale saanad ciidan oo ay markaasi la socdaan ciidamo si gaar ah u tababaran oo dowladda ka tirsan ayaa halkaasi laga dejin doonaa iyada oo ay qayb ka noqon doonaan unuga qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Laascaanood waxa wararku qaar ay sheegayaan halkaas uu la tagi doono taliye Jimcaale Taakar arrintan waxay imaanaysaa iyadoo dowladda iyo sidoo kale Puntland ay u dhaxaysay xaalad car iyo wir ah lagana baqdan qaba in dagaal military oo toos ah uu dhex maro dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa dhawaan deegaanadeedu waxay ka mamnuucday in cil iyo dhul toona ay ka soo galaan xubno ka socda dowladda federaalka Soomaaliya haddii ay noqon lahayn saraakiil ciidan iyo sidoo kale ciidamo laftirkooda ama mas'uuliyiin dowladda xilal ugu magacaaba arrintan ayaa muujinaysa dowladda federaalka Soomaaliya aysan dhag jalaq u siinaynin Puntland iyo sidoo kale dalabkeeda ku aadan in deegaanadeeda hub iyo ciidan la keeni karin oo aanay aqoonsaneen ciidan la yiraahdo ciidanka taliska qaybta 54aad oo ay Puntland ay sheegayso in military Soomaaliya ay wada leedahay dalka uusan ka jirin dalkana ay ka jirto ciidan markaasi Puntland ay gaar ay u leedahay ama nin walba ciidan uu gaar u leeyahay dalka oo dhan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waa ay joogaan marka laga soo tago Puntland iyo Somaliland
laakiin puntland ayaa hadda waxay u muuqataa in iyadu ay u dhaqmayso sida somaliland oo kale oo goor hore ku dhawaaqday inay gooni isu taagtay marka waxaa la isweydiinayaa sababta puntland u diidan tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliya su-aashaasise waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore ee arrimaha gudaha maamulka puntland cabdi faarax saciid juxa haddaba muxuu arrintani ka leeyahay wadahadallo ayaa u socda dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka waxaana saacadihii lasoo dhaafay lagu waramaya in kulamo kala duwan ay yeesheen ergada dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka guddiyada farsamo ayaa qabanqaabinayo kulamada ay yeelan doonaan xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka soomaaliya waxa ay dhinacyadu ka hadlayaan ajandayaasha iyo sidoo kale qodobada ay tahay in miiska lasoo saaro iyada oo heshiis buuxo laga gaarayo qodobadaas oo ay mucaaradku iyo dowladdu isku maandhaafsiiyeen dhinacyadu waxa ay miiska soo saareen role model doorasho kuwaasi oo aad u kala fog inkastoo madaxweynuhu uu sheegay mucaaradka marka modelkooda doorashadu ay caddeeyeen kadib in hanaan xisbi dalka dadku wax ku dooran doonaan laakiin mucaaradku hanaan xisbiga diidan yihiin doorashadooduna waxaa loo arkaa nooca modelka ay soo bandhigeen mindi ku taag oo dowladdu waxay ugu baaqayaan in tog dheer doorasho ay ka qabato hargeysa doorasho qafiicooda ay ka qabato taasi oo caqliga maangalka ah uusan aqbalin haddaba wadahadalladan oo loo madlan yahay iyo guddiyada farsamo kulamada ay leeyihiin maxaa laga filan karaa arrintaada xudhisaysa qaybta hoose faalada dadweynaha noogu reeb runtii waxaa dhacay annagoo dhan ayayna dhaawacayaan soomaaliyay dhaawacayaan qarannimaday dhaawacayaan waxaa ilaahay mahadiisa dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada beesha mudullood inay arrintaas iska soo abaabuleen inay sheegaan inaysan raalli ka ahayn inay raalligelin ka bixiyaan taas waa arrin tusinaysa bisaylka beesha meesha uu joogo bisaylka dhallinyarada soomaaliyeed meesha ay joogaan inaysan ku saamoobin sunta iyo beenta dowladda wakhtigeedu dhammaaday nidaamka wakhtigiisu dhammaaday xukuumadda wakhtigoodu dhammaaday ay lacagta ku bixinayaan lacagtii loogu talagalay dadka dhibaataysan in lagu gargaaro mashaariic in lagu fuliyo horumar in looga shaqeeyo waxaa loo adeegsadaa dadka ka soo horjeeda afkaarta khaldan ee dowladda in lagu caayo lagu dhibaateeyo oo lagu laaluusho dad badan dhallinyaradu marka inaysan ku saamoobin oo ay ka fiyoobaadaan oo ay u soo istaagaan xaqa ay xaqa garab istaagaan runtii waa arrin farxad leh waa arrinna dhiiri gelinaysa intaas markii aan ka gudbo sida laga wada hadlayba annaga waxa aan ka hadlayno ama waxa aan wadnaba waxa waaye dastuurkii ummadda soomaaliyeed u yeelayna inaan habeen madow iyo laaluus lagu beddelin labo doorasho aan laysla oggolayn oo aan laga wada hadlin oo aan laga heshiinna dalkan inaan laga qaban maxaa yeelay waxay dhalinaysaa naqaanaa inta hadda la soo maray oo aan wada ognahay tii beenta aheedoo xamar ka dhacday tii beenta aheedoo ka dhacda koonfur galbeed natiijooyinkeedu waa wada aragnay marka mudaaharaadkuna waa arrin dastuuri ah oo ummadaha xadaariga ay isticmaalaan ummadda soomaaliyeed haddaysan mudaaharaadi karin oo ra'yigooda jeedi karin doorashada dhici kartaa noocay u agta waa su'aal meesha taalla mar walba waxaa laga hadlaa amni darrada ma sharci darrada iyo cadaalad darrada iyo dulmiga cidda wadda mase waxaa wada cidda leh ha la joojiyo dulmiga cadaalad darrada ha la joojiyo ummadda yaan la kala geynin amniguna ma aha wax maanta yimiday waa broses waa wax socday wakhti dheer ka soo bilowday wakhti badan loo dadaalayo qof la arkaba maalintii uu yimiday iyo maalintii uu xil qabtay inuu ku diray amnina sidiisaba haddii qora meesha yaallo amni ma yaallo maxaa yeele qoraga wiilka haya inuu dulum ku geystay u badanta waana wada aragna hadda magaaladan wada joognaa qofkii dowladda ka ra'yi duwan sidoo raba uguma socon karo dhibaatooyinka dhallinyarada soomaaliyeed ee la kulmeen gaar ahaan dadka aragtidooda bannaanka la soo istaagay saxaafadda waa wada aragnay qaaraa xabsiyada ku jira ilaa hadda qaaraa laga soo daayay oo halkaa nala fadhiya dulumkaas wuxuu dhalinaayo ma aha nabad wuxuu dhalinayaa amni darro maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay cadaalad darro
xuquuqda qofka muwaadinka oo la duudsiiyo amni kuma dhasho. marka amniga shabaab iyo amniga dowladda maxay ku kala duwan yihiin? ma sheegi karta adigu waxay ku kala duwan yihiin? maxaa yeelay mid kastaba wuxuu ku dhisan yahay xoog, kuma dhisna fikir, kuma dhisna aragti, kuma dhisna xurriyad, ee wuxuu ku dhisan yahay nidaamka meesha ka jira haddaad ka hor timaado xabsi iyo dhibaatayn. annaga marka dowladnimada aan ka soo shaqaynay ma oggolaa karno inay nuucaas noqoto oo dadka lagu dhibo. madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday waa og tihiin markuu doorashada ku jiray wixii aan la soo marnay, waxaan dadaal la samaynay, dad aan waxba u gelin oo maalinkaas laga yaababa inay ka soo hor jeedeen ama ay ka shaqaynayaan in la dhibaateeyo, maanta waxay leeyihin shariif soo dil. waa wada naqaanaa, waana qaraabada ways wada naqaanaa. nimankii shalay la yidhi diyadana qaata labadana soo dila, maanta inay madaxweyne xasan dhahan shariif soo dil ee asaguna ow yeelo, horta waa doqonnimo. horta waxaan rabaa inaan idiin sheego, alla dilaa dhinta. aniga nin hadda lagu handadayo waa lagu dilaa oo wax isaga beddelayaan ma ihi. wakhtigayga ilaahaya subxaanahu wa tacaala waana ku qanacsana. waxaan u soo istaagay oo shalay anoo intaan garaadkaygu ka yaryahay oo dadkaan aan aqoonin aan u soo istaagay, maanta ma beddelaayo. in sharطina ma aha ninka meesha jooga, madaxweynaha meesha jooga, inaan qaraabo nahay iyo inaanan qaraabo ahayn. shalay aniga madaxweyne xasan, madaxweyne farmaajo oo asaga xilka ku wareejiyey waa isla mucaaradayna. inta madaxweyne farmaajo uu bi'iyey, xasan tuman laabkeeduu bi'iyey. dastuurkii uu beddelay, wuxuu ka hor yimiday xurriyaadkii, wuxuu mataqaanaa dhabar ka saartay arrintii doorashooyinka ayuu dhabar ka saartay. wuxuu qaybiyey dalkii. maanta waa la socoteen maamul goboleedadii xoogaa lagu wada dardaray. waxaa ugu dambaysa galmudug, aadaan uga xunaa waxa ka dhacay. wax dadka soomaaliyeed iyo dadka reer galmudug u qalma ma aha in taladooda gacanta lagu maroojiyo oo shalayna la yidhaha doorasho la'aan iska jooga, maantana wixii la rabo laga sameeyo. talada madaxweyne xasan sheekh waa taas. taasina soomaali ma anfacdo, waxayna u baahan tahay in laga dhiidhiyo oo laga hor yimaado. sidaas oo kale wixii ka dhacay koonfur galbeed, dhiiggaa daatay, ilaa haddana dhiiggaa daadanaya. doorashadu siday u dhacdana waa ogna. ayadana wixii la sugaayey iyo wixii la filaaya ma aha. dadka soomaaliyeedna waxaan aaminsanaha wacyigoodu maanta waa buuxaa, aqoontii la rabana waa leeyihiin, dad wax la socda oo dowladnimada fahamsanna waa yihiin. sidaas waxaa la mid a hirshabeelle oo iyadana sidoo kale loogu socdo. marka doorasho qoro wadata oo beebo wadata oo ciidan amni wadata oo wadata ciidanka militariga doorasho ma aha. doorashadii madaxweyne xasan sheekh laga sugaaya ma aha taas. madaxweyne xasan wuxuu ka yimiday background tacliinuu ka yimiday, macallinnimo ka yimiday. inuu maanta qoro qaato oo la celi waayo runtii waa nasiib darro. ou aamino marka ma raba inaan ku sii dheeraado halkaas, laakiin aniga sharaf iyo karaamo waxaa ii ah, farxad waxaa ii ah beesha mudullood, beelaha soomaaliyeed inay arrintaas fahamsan yihiin. oo maanta wiilkayga cabdifataax oo meeshaan soo istaago oo aad arkayseen oo mataqaanaa qaraabo hoose la ah iyo abuukar oo soo joogso. laba abuukar in soo joogsada saddexdiinuba. aniga maanta cuqdadii geli kartaa horta ma jirto. waxaysan ii gelayn nin xukun ishaysta oo dulmi samaynaa inaan isqabanno, arrin dabiiciya waaye. inuu laaluush dhiibo oo dadka been u sheegana arrin dhici karta waaye. laakiin waxaa ilaahay mahadiisa dadka kuwa qaraabada la ahaaya intay fahmeenaa dheheen maya, waa kuwaan raggaan. ninkan wuxuu ka yimid yurub, ninkaana wuxuu ka yimid imaaraadka, raggaana magaaladeena la jooga. wiilkaana 2 bil waa dhanta umaleynaa intaas la joogno. dadka la soo dhibaateeyey oo 40 maalmood 25 maalmood saldhigga yaaqshid lagu ciqaabayo ku jira. marka
aniga mudullood iyo Soomaaliya waxa uga tagayaa halgamayaal ya dad dulmiga diida oo ka hortaga dulmiga ayaan uga tagaynaa ilaahay idankiisa marka kalsooniha lagu shaqeeyo malakamoodka ilaahaaya habaqina cid aan halgamin oo aan dadaalina meel ma gaarto Mandela meeqa sano xiray 27 sano markuu ka soo baxana maxuu noqday madaxweyne ilaa hadda nin lamida South Africana soo marin Africana soo marin ya marka waxa la rabaa xaqa guuleysanaya xaq darradu waa dhumaysa dadka magaceena lagu dulmiyay mudulada daanahay waa cudur daaranayna waxa ugu horeeya beesha murusade oo dhaqankeedii duubkeedii siyaasiyiinteedii ma taqaana madaafic lagu garaacay daroon lagu garaacay waxa kamid ah guddiga loo diray oo imaamkii ma taqaana abgaal ama imaamkii mudullood iyo ugaaskii ay kamid ahaayeen sanataro guddiga ay kamid ahaayeen oo lagu garaacay ma taqaana hubka culus lagu garaacay ilaaha ku maasan in uu usha dhaxda ka qabtay oo dadkaas maanta ay nool yihiin oo kamid ahay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo saaxiibkeena aan wada shaqeynayna marka sida Dr. Barqadlo uu sheegay mudullood maanta waxa laga rabo waxa waaye anigu waa dhaqanahay hooyashadiina waa aqbalay awalna wax ugu ma jirin laakiin inay garato beesha intaas oo iiga timaado waxay ii tahay farxad iyo sharaf iyo dhiirigelin hawsha mudullood u taala waxa waaye inay dhaqaan beesha murusade haddii odayaasha duubku ay dhaqi waayaan dhalinyaro haddaba dadka adinka ugu soo horeyseen isxilqaama wiilal iyo gabdho meesha joogtiin waxaa leedinka rabaa beesha murusade inaad dhaqdiin waxaa leedinka rabaa imaamkiin inaad dhaqdiin waxaa leedinka rabaa ugaaskiin inaad dhaqdiin beeshaan waxay meeshaan ku soo gaartay Soomaali waa aamintay waxa lagu aaminana wanaag waaye xoog ma aha xoolo ma aha dadka inay ka fiican yihiin ma aha waxa lagu aaminay dad nabadeed dad cadaalad ka shaqeeya dadka xumaanka hortaga inay yihiin marka waxa la rabaa beeshu dhaqankii ay lahayd inay u laabato kaasa iyada u fiican kaasa Soomaali u fiican aad iyo aad u mahadsantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh